هاي maxay tiri naclatullaahi calayk nacladda waxaa u malaynayaa dumarka markay ragga wax u diidaan malaa'igtaa nacladda baa maqli jiray marka laakiin af Soomaali ma aqaan nacladda waxay ku noqonaysaa habaar miyaa mise ma garanayo laakiin ayada ay malaa'igta isticmaasho dadka waxaa u malaynayaa inay ka xariman tahay oonan isticmaali karin arrinta inay dib ku tahay waa u malaynayaa dib ugu noqo Soomaali badan oo naclad iyo waxa adeegsada waa maqlay malaa'igta iyo dadku isku cay inay soo noqonayeen baa u malaynayaa runtii yaa fanaanka muxuu yiri xoolaha basumada lagu baadi sooca dadna weedha suganiyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya annageel basir kudan kugumaan salaamini sababan tirsanaya suldhabaale waa hadal haddana waa sigooniya waxaan sidaa kalgacal aan kula sugaye kugu simaayego heedka waan soo xasuusta wixii markii hadalku markuu wanaagsan yahay qoraal fiican yahay baa wax laga oran karaa laakiin caydii iyo waxaas wax lagama oran karayo cayda waliba macnaheeda aan la aqoonin fiidiyowga hore oo aad ka xanaaqsantahay oon dhahay wadaadadu waxay doonayaan nin gaala inuu dalka hogaamiyo wax yar baan ku tusayaa tusaale ahaan inay wadaadadu rabaan dowladda Farmaajo waxaa dadku ugu sareeyay waxaa ka mid ah Fahad Yaasiinna waa nin wadaada waa nin ixtisaam ka tirsan dowladana wuxuu ku lahaa awood sare waxaana kaloo dowladda ka mid ahaa ayagana la shaqeynaya wadaadada Sheekh Bashiir Salaad baa u malaynay in la dhaho iyo Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ee baha u naxariiste dhammaantood dowladda Farmaajo waxay ku lahaayeen awood aad u weyn miis weydiisay maxay markaa shareecada u hirgelin waayeen baarlamaanka xoog bay ku lahaayeen hadalkooda la maqlayay dowladda ayaga maamulayay moogtahay maxaa shareecada dadka lagu waalay oo lagu wareeriyay oo lagu dilayo maxay markaa u hirgelin waayeen 4 sano oo dowladda Farmaajo ay la shaqeynayeen kooxda maxaa la dhahaa ixtisaam oo ka mid yahay Fahad Yaasiin soo qaaday kuwa badan baa la shaqeynayay maxay u hirgelin waayeen ma isweydiisaan dhamaantiin dadka ka xanaaqsanaayo oo dhan Soomaaliya inta sharciyada sameeyeen dhahaan sharciga lagu xukumayo al-shabaabna ugu yeeraan dadkuna ay heshiiyaan dagaalku sii socday dowladana qayb ay ka ahaayeen hadda Xasan Sheekh markaa fiirisid waxa la shaqeeyo wadaadkii hore ee ku dagaalamayay sharciga wadankii lagu xukumo oo maxaa la dhahaa Roobo oo Mansuur maxaa ka hortaagan waa wasiirka awqaafta iyo diinta awood buu ku leeyahay hadduu doonayo sharciyada shal dad buu laayay uu halgamayay wuxuu rabay islaamka iyo sharciyada wadanka lagu xukumo maxaa baarlamaanku u horgeyn waay u dhahay sharciyada Ilaahay ma isku xukumeena wadaadadu ma rabaan xilbi u tartamayaan qof gaala iyo qof muslina iyo wax meeshii maada shaqo kuma lahana waxay rabaan ayagu inay wadanka xukumaan haddii rabaan ayagu gaala wadamada wadanka xukumayaan waxaan ku tusayaa tusaale kale oo fiican ninkle Axmed Madoobe Axmed Islaan oo hadda Jubbaland madaxweynaha ka asagu waxa ragii raas caseer iyo raas kambooni ka dagaalamayay oo wadaadada la safnaa asagay Xasan Daahir Aweys iyo Roobo oo Mansuur iyo kulli waxa ay saaxiibo bay ahaayeen moogta ragii dagaalamay waay Kismaayo hadda xukuma madax buu ka yahay muddo dheer buu hayaa afka ma ka maqashay shareecadii baa rabaa inaan Kismaayo ku xukumo may xeerka Soomaaliya wixii yaala baa lagu xukumaa arrintan shareecadii waxaas dadku way ogyihiin wadaadadu way ogyihiin ayagu kuwa wahaabiyiinta shareeco ayaga aragtidooda gaar u ah bay qabaan wadaadada kale oo ka soo horjeeda oo maxaa la dhahaa ayaguna kuwa salifiga marka laga reebo kuwa kale oo maxaa la dhahaa shiico iyo kuwa kale oo digrin jira magacooda waa hilmaamsanahay ayagana wadaadada kale kuwa ayaguna wax shareecada si kale bay u arkaan shareecadu ma ahan wax la isku raacsan yahay laakiin dadka waxa loo sheegay inay kitaabka Ilaahay tahay laakiin wadaadadu waa si kale fahmeen wax iga joobkooda ku jira bashariico u yaqaanaan haddaba haddii dawlad in la helo la rabo kaliya
أنا معناه ما هن هذا الكائن كاسي دقني مو فاهمه Soomaaliya hadda hadduu qof caadi oo gaal uu qabto wax iskama meermalin karo baarlamaanka iyo meelo badan bay dawladdu ay hoos tagtaa oo waxba la ansixiyaa shuruucdan iyo xeerarkan meelo badan bay maraan hal qof oo gaal waxba ma bedeli karo hadduu gaal noqdo hadduu saan kuu sheegana waa kaasoo way joogeen may wax bedelaan waxba ma bedeli karaan waa in la isku raacaa tusaalahan Norway baan joogaa haddii nin muslina uu madaxweyne ka noqdo hadda mar dhow doorasho qabanayna islaamnimadiisa wuxuu ku bedelay sharci waddanka lagu xukumi doono xeerkii yaala ee Norway baa socon doono baa lagu xukumayaa qofka muslimkaana madax buu ka noqon karaa uma diidayo sharci xeerka waddanka Norway inuu qof muslim uu hogaamiyo anuu malayn inuu diidayo way ka mid yihiin baarlamaanka gabar muslimada ku jirta soo hadii baritolan rabtay inay noqoto رئيسول وزراء كانوا اختاروا بقر بالين وين نقول كرتا مركا ولا ليال انت عقليني جراتكنا استعماشان waxaan ila meeraysaa la dhahaa arintan ilmaani waxa loo baahan yahay inaad adinku kacdaan oo toostaan shacabka oo waxa ay rabaan dawladda ay dhahaan fuliya oo la fuliyo oo dad ay yimaadaan meesha garanaysaa taas loo baahan yahay عيدا يحناق وحاسنا ينقف العاينة وحفي عما سومالنما maahan dadnimo maahan islaamnimo maahan diin dhigaysa male in la iscaayo ayadoo la kala aragti duwan yahay baa wax la isweydaarsanaya tan timahayga yani qaabka u labisanahay deenu qaabka u labisanahay dambiile kumay anu aragtidayda waa saas aduu indhahaagu waa laga yaabaa inay aragti dambiile okay haddaan dambiilahay for example dambigiyaan ka galay ilaahay baan ka galay Soomahan eebe xisaabteedu waxa la sugayaa marka aan dhinto ilaahay meeshuu geynaya isaga yaqaan adigu uma baahna inaa xanaaqdid ama caaytintid ama ka careysiyo qaab labiskayga laakiin aragtideedii aqligayga baa ka wax iska dhigi karnaa haddaan intaan wax dhaho waxa kula qaldan waxa dhigi kartaa waxaasa ila qaldan saasa loo hadlaa xanaaqu iyo caaydu waxa la yiri afxumo nabadna way ka kaxaysaa dagaalna wax kaaga ma torto anigu kuma arkayo inaa caaytintid dadka arkaya magacaaga qof caaytama oo daciif oo hal aqoon tahay dhinaca hadalka inuu ka meesha ka hadleed wax ka qurux badan baa dhigi karti qofnaaga wadataa mar waa wadataa waxa u maleynaa nin tahay niman Carabeed baa kaaga buuxa niman Soomaaliyeed ka buuxso maxaa nimanka Carabeed oo hadlayo waxa ku falisa dadku ma fahmayaan sawirada soo qaadatay وقت مش خوف بساسة تاي وافك برتي ودتك اسك عاية ونقول كلا كرانسا أصلا كورا الله مركز دمانتين دتك فيديو يهرد عوضي ودن والبا حرك كتيرة قفك مدحضة كان نقونها وسامين ساوين كما يلان كرا حرارك يشروع وحا بدلي كرا برلمانك كرانسا برلمانك بدلي كرا hadduu xasan hadda ninka madaxweynaha maxaa la dhahaa xasan madaxweyne dhan baa magaciisa ilo waaga la ahaade marka xasan baa umaleyn la dhaho haddii xasan maanta uu diinta ka baxo gaal uu noqdo ilaahay ka furtay uu noqdo ilaahay kama dhige uu noqdo tusaale ahaan waxba kama bedeli karo dawladda waxba kama bedeli karo waa dawladda ra'iisul wasaare leedahay baarlamaan bay leedahay wasiire leedahay waxaas oo dhan bay leedahay shuruuc meel la maray leedahay shaqsigu wax saa u badan ma bedeli karo waa in baarlamaanka waxa ugu badan awood ugu badan haysto waa baarlamaanka waxa la horgeeyaa xeerka kufsiga hadda waxa hortaagan waa baarlamaanka waxay u hortaagan yihiin wadaadada bay ka baqayaan wadaadadu waxa iskaga dhex darsan fiidiyowga ugu dhamaanayaa sinada iyo kufsiga waxa la dhaho wadaadku waa qof waalan oo doqon anu soo arko sababtuna waa ku sheegaya laba qof inay galmo sameeyso oo isku galmooto dambi ilaahay bay ka galeen ilaahay baan xukumaya laakiin qofka kufsado dambi wuxuu ka galay qof kale adduunka saaran waxaana loo baahan yahay in loo cinqaabo moogtay qof ninkii gabar kufsada laba qof oo isku galmootay cidna dambi kama yeelin ilaahay ahayn dadka dambi kama yeelin haddii ilmahay iska dhalaan oo ilmo ay ku dhashaan meeshaas annaga loo baahan yahay in xeer ka soo saarno oo dhahno waa inaa kurisaan wax bulshada in raali ka yahay baa sameeysan waa lagu qasbayaa dambi markaas haddii ilmaha kursan waayaan bay dadka ka galeen waayo ilmaha waa inaa ilaalina anagu dadka fiidiyowgu gaaya iskara lahaada ugu dheeraaday aad baa idin salaamay